Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkii Ogaalka Dunida. Waxaan maanta kusoo qaadan doonaa xiriirkii jacayl ee dhexmaray aktooraha weyn ee Bollywoodka Akshay Kumar iyo atirishada Raveena Tandon. Superstar Akshay Kumar wuxuu ka mid yahay maanta xidigaha loogu jecel yahay Bollywoodka, balse Akshay Kumar sagaashameedkii ama 10kii sano ee dahabiga ahaa, awoodiisa atooranimo dhulka ayay ku jirtay. Haddii awoodiisa atooranimo hooseysay, awoodiisa dhanka dumarka ayaa cirka ku jirtay, waxaana lagu yeeri jiray Shabeel Naagoodka Bollywoodka. Waxaan idiin soo gudbinaynaa xiriirkii jacayl ee dhexmaray Akshay Kumar iyo Raveena Tandon, oo ahaa mid ka mid ah xiriiradii jacayl ee sagaashameedkii ugu caansanaa Bollywoodka. Akshay wuxuu xiriir jacayl la sameeyay gabdho badan oo Bollywood ka tirsan, balse waxaa ugu caansanaa kii Raveena Tandon, maadaama ay ilaa hadda xiddigtan ka qoomameyso waxyaabihii ay Akshay dartiis u sameysay. Khiladii Kumar iyo quruxley Raveena waxay isku barteen filimkii Baloog Istaaga Weynka noqday ee Mohra, halkaas oo ay kasoo bilaabeen xiriirkoodii jacayl. Filimka Mohra waxaa wada jilayaasha kale ah Akshay Kumar, Sunil Shetty, Raveena Tandon iyo Nasruddin Shah. Intii lagu guda jiray duubistii filimkan, Akshay Kumar wuxuu aad u soo jiitay gabadha xilligaas Bollywoodka oo dhan ay ka daba ordayeen ee Raveena, iyadoo xilligaas ku jirtay waqtigeedii ugu wacnaa dhanka quruxda iyo dhanka aflaantaba. Raveena waxaa soo jiitay quruxdii Akshay Kumar oo markaas ahaa mid isku darsaday soo jiidasho, furfurnaan iyo weliba shaxaarinimo. Saxaafadda ayaa bilowday in ay ka sheekayso isfahanka ka dhexeeya labadii jiraa ee filimka Mohra ku metelaya lamaanaha isjecel, ilaa markii dambe ay Raveena saxaafadda u caddaysay xiriirka jacayl ee kala dhexeeya ninka loogu yeero Khiladii Kumar. Waxay sidoo kale caddaysay in Akshay uu u ballanqaaday guur, kana codsaday in ay joojiso jilista aflaanta, waxayna sheegtay in ay joojisay jilniinka maadaama ay tixgelinayso codsiga saaxiibkeed. Sanadii 1996 ayaa waxaa dhacday in la sameeyo filimkii Khiladiyonka Khiladi oo ay wada jilayeen Akshay Kumar, Rekha iyo Raveena Tandon, waxaana la isla dhexmaray in Rekha oo aad uga weyneyd markaas Akshay Kumar iyo Akshay laftiisa uu ka dhexeeyo xiriir. Raveena ayaana arrintaas ka cadhootay, waxayna tiri iyadoo ka hadlaysa sida uu Akshay Kumar u khiyaameeyay: wax walba dartiis ayaan u lumiyay, mustaqbalkayga ayuu ku ciyaaray. Akshay intaan ka badan uma dulqaadan karo, waxaan go'aansaday inaan xiriirka u jaro, maadaama niyadda uu iga dilay, mustaqbalkaygii fankana iga burburiyay. Wixii intaas ka dambeeyay, Akshay wuxuu bilaabay inuu iskaga dhex baxo murankii Raveena iyo Rekha, wuxuuna bilaabay soo xirigelinta gabadha quruxda badan ee Shilpa Shetty. Halkaasna waxaa ka bilowday xiriir jacayl oo isna qisa noqday.